بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب الشانل ku xiran waa mar kale walaashiin saaro ku kini muuqaal cusub maanta waxaa idin wada kastar Soomaali ama labaniyad Soomaali ma sha Allah qof walba soo yaqaano qaabkaas quruxda badan ay ugu dambeyn ku soo baxdo waxyaabihi aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan halkan waxaa ku heystaa wax yar heela oo aan soo tumay sokor qiyaas inta macaanka aad jeceshahay hal bakeeri oo caano ah oo caanaha gasaca maanaha boodarka ah afar bakeero isla bakeeriga caanaha igu jiraan oo biyo ah waxaan soo isticmaali doonaa 3 qaando oo kastar ah insha Allah kastar bood ah haddana waxaan sameeynaa caanihii biyo ayaan isku soo qasayaa insha Allah sida wada arkaysan caanihii biyo ayaan isku qasayaa markaan si fiican isku qasayaan isku soo laabanay insha Allah aan digsiga aan ku karlaa dabka soo saaro sida wada arkaysan digsiga ayaan dabka soo saartay axbaabteeda haddana waxaan ku soo shubayaa caanihii aan soo qasay waa 4 koob oo caanaha ah markii ay qandacaan kadib waxaan ka soo darsanayaa wax yar insha Allah sida wada arkaysan xogaaga aan ka soo darsaday waxaan ku qasayaa 3 qaando oo kastar boodhaga ahayd ma sha Allah 2 qaando ayaan ku soo shubay caanihii diirna oo aan ka soo darsaday digsiga qaandadii u dambeysay saddexaad ayaan ku daray si fiican ayaan isku qasaa insha Allah waxaa kaloo caanihii dabka saarnaa ku soo daray heelkii diyaarsanaa sida wada arkaysan waxaan kaloo ku soo darayaa sokorti ma sha Allah tabarakallah intaas ayaan isdhex marinayaa kadib kastarkii oo aan si fiican iskugu soo dhex qasay oo isku soo dhalaalay ayaan ku soo darayaa insha Allah taala qaabkaas ayaan ku soo wadayaa insha Allah mana ka kala joojinaa insha Allah walaaqitaanka sababtoo ah haddii aad ka joojisid hoos ayuu kaaga dhagaya dabkana dab hoos waaye ma ahan dab aad u badan aad u gaabsan yahay ma sha Allah qaabkaas aad arkaysan ayuu isku bedelay ma sha Allah kastarkeeni oo soo yar adkaanaya sida wada arkaysan ma sha Allah qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah ilaa uu diyaar ka noqdo dab badan ma u baahnay karis ma sha Allah waxaan rajeynayaa inaad si wacan ila socotaan haddana sidaas ayuu diyaar ku yahay kastarkeeni sida arkaysan axbaabteeda mar walba dabka ku sii daaysid oo ka sii adkaanaya haddana waxaan ku soo shubayaa baaquliyaashii aan ugu talagalay qaabkaas arkaysan ayaan ku soo wadaa ma sha Allah kadib fridge ayaan gelinayaa markii aan ka soo bixiyo aan isku soo laabanayna insha Allah qaabkaas ayuu ugu dambeyn ku soo baxay axbaabteeda markii aan fridge geliyay kadib ma sha Allah waa qabow macaan ma sha Allah inaba caadi ahaan waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideen ama ka wada hesheen cidii daneynaysa haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow please subscribe haddii aad horey noola joogtayna like asxaabtaada eeladaada sii share garee waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan jazaakumullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh